saaxiibo badan si uu gaaro muuqaalka like saar. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay ha iloobin inaad subscribe saarto si muuqaaladu kugu soo dhacaan isla marka aan soo gelino cudur qofka ka dhiga mashaqayste. Inta badan cudurkan dadka qaba shaqooyin aad u badan ayay helaan oo qofku shaqo wuu helayaa laakiin wuxuu qofka ka dhigaa cudurkani mashaqayste. Sababtu wax kale ma ahan shaqooyin badan ayay ka tagaan. Inta badan dadka cudurkan qabo shaqo kasta waa ay ka tagayaan. Dhibaatada ugu weyn haysata marka maaha inaysan shaqo helaynin, shaqo kasta way ka tagayaan. Shaqo kasta way ka tagayaan marka lagu leeyahana shaqada inay diidan yihiin ma ahan, iyagu qofka ma diidana shaqada ee cudurka ayaa shaqada u diidan. Cudurka ayaa shaqada u diidan. Dadka marka mashaqayste ayuu qofku noqonayaa oo shaqooyinka inta badan dadku way jecel yihiin inay shaqaystaan. Qofku marka isagoo rabo inuu shaqaysto ayuu haddana shaqaysan karin. Sababtoo ah waxaa isla marka uu shaqooyinka bilaabaya ku dhacaysa qanaaco la'aan. Shaqada wuu raadinayaa, wuu rafaadaya. Xataa waxaa laga yaabaa inuu imtixaamaad u galo laakiin shaqadii markuu helo wax yar kadib markuu shaqada joogaba waxa waaye shaqadii wuu ka tagaa. Cudurkaana u diidaya qofku marka isma oga isagu. Isma oga, isma dareensana. Celcelis ahaan dadka cudurkan qaba marka waxa ay shaqooyinka inta ugu badan ay joogaan 4 bil. 4 bil kadib cudurkan ayaa sabab u noqda inuu qofku ka tago shaqada. Sababtoo ah shaqada ayuu qofkii ku qanci weynayaa. Qanaaco la'aan xagga shaqada ayaa marka ku dhacaysa qofka. Cudurkani wuxuu aad ugu dhow yahay cudurka stresska. Stress ma aha laakiin waxyaabo badan ayay ka sameyn yihiin. Waxaa la yaab leh marka dadka qaba cudurkani marka shaqadu ay bilowga tahay ama shaqada maalmaha hore waa dad aad u firfircoon, shaqada laga jecel yahay, wax walbana qabta, waliba dad dadaal badan waaye. Laakiin dhibaatada waxa waaye qofkii oo aad u firfircoonaa wax yar kadib waxaad arkaysaa isagoo haddana shaqadii nacaya oo shaqadii ka tagaya oo dadkii uu la shaqaynayay ayba ku baryayaan war maxaa kugu dhacay, war ma xanuunsatay, war shaqadan joog. Iyadoo qofkii waxaad arkaysaa shaqadii lagu baryayo oo haddana shaqadii uusan qofkii joogaynin. Marka cudurkan waa cudur halisa dadka inta badanna mashaqaysta ayuu ka dhigay. Ciladaha kale ee dadka shaqooyinka uga tagayaan ee dadka cudurkan qaba ayaan ka sheekaynaynaa. Marka waxa ugu horeeya marka inaysan jecleen amarada uga imaanaya dadka ka sareeya. Dadka cudurkan qaba dhibaatada kale ay qabaan waxay tahay marka laga reebo inay shaqadii markay wax yar ay joogaan aysan ku qancinin. Dhibaatada labaad ay qabaan waxay tahay inaysan ba qaadanaynin amaba aysan jecleen inay qaataan amarada dadka iyaga ka sareeya. Waana sababta ugu weyn marka ay shaqooyinka uga tagaan una raadiyaan mid ka duwan midda ay markaas joogeen. Marka qofku marka hore shaqo ayuu raadinayaa. Shaqada wuxuu jecel yahay inuu isagu maamulo tiisa inay shaqayso maadaama shaqaale uu yahana tiisii ma shaqaynayso. Dadka qaba cudurkan marka sidoo kale waxay raadiyaan shaqooyin si gaar ah ay u leeyihiin maadaama aysan amarada jecleen. Shaqooyin si gaar ah ay u leeyihiin ayay raadinayaan. Sababta ku keenaysa marka waxay tahay amarada aysan jecleen. Haddaba cudurkan ayaa sabab ah marka qofku inuu shaqooyin gaar raadiyo maadaama shaqo kasta uu tago uusan ku qancaynin. Mid ayuu bilaabayaa waa ka tagayaa, mid ayuu bilaabayaa waa ka tagayaa. Waxaa la yaab leh marka qofka dadka qaba cudurkan shaqo helistoodu aad u fududahay. Shaqo kasta way qabanayaan, way helayaan laakiin shaqada kuma nagaadaan. Cudurkani waa cudur halisa dadku intooda badan inay qabaan xitaa ma oga. Sidoo kale waxaa dhacda cudurka laftigiisa marka cudurka qofka shaqada u diidaya markaan ku leenahay qofku isagu ma oga marka inuu cudurkaas qabo. Marka ay shaqooyinka helaan marka dadkani si lamid ah kuma nagaadaan. Sababtoo cudurka ayaa markasta u diidaya shaqada. Waxaana muhiim ah marka in cudurka marka hore ay iska daawayaan si ay u noqdaan qof shaqooyinka ku nagaada. Haddii marka qofka cudurkan laga daaweeyo wuxuu noqonayaa qof caadi ah oo shaqooyinkii ku nagaada. Shaqadii marka tusaale fiiri qofkii shaqo u gaar ah ayuu helay. Shaqadii u gaar laftigeedii kuma sii nagaanayo oo wuxuu bilaabaya haddana inuu isla iyadii haddana ka tago. Mid kala bilaabo ka tago, mid kala bilaabo ka tago. Cudurkani waa cudur halisa waliba Soomaalideena aad ayuu ugu badan yahay. Qofka shaqooyinka kuma nagaado. Tii uu lahaana kuma nagaado, mid dad kale uu shaqaynayna kuma nagaado. Shalay waxaa laga yaabaa inuu ku marmarsoonayay dadka isaga ka sareeya inay ahaayeen dad xun, laakiin maanta haddii shaqo kaligiis uu maaragtay furto shaqadaasna
kuma nagaanay aawe marka dadkii shalay uu ku eedeynayay inaysan waxba ka jirin ayaad ogaanaysaa marka qofka qaba cudurkan xitaa waxaa adag in lala shaqeeyo. Dadka kale inay la shaqeeyaan way adag tahay, iskaba daa inuu isagu shaqaysta. Dadka la shaqeeya ayaaba dhib ku qaba oo qofka qaba cudurkan magaciisa waxaa la yiraahdaa bipolar disorder. Waa cudur halisa, qofka xanaaqiisa ayaa badanaya, shakigiisa ayaa badanaya, ciladaha uu shaqooyinka ka arkaya ayaa badanaya. Bipolar disorder wadankeenu aad ugu badan yahay, dadka in laga daaweeyana waa muhiim, sababtoo ah waa cudur inta badan dadkeenu dhibaato badan ku haya. Waxaa sidoo kale jira dadka uu ku fogaaday cudurkani inaysanba shaqaysan oo aysanba shaqo diyaar u ahayn, mar walbana ay isku dayaan in iyaga laga canqabto oo keliya. Balse dadka ka nabad qaba cudurkani waa dadka inta badan ku nagaada shaqooyinkooda. Waan rajeynayaa muuqaalkan inaad wax badan ka faa'iido. Like saar muuqaalka haddiiba aad hore u like u saarin, haddii aad nagu cusub tahayna subscribe inaad saarto ha iloobin.